xaliimo khaliif cumar iyo taariikhdeeda ayaan rabnaa inaanu halkan idinku soo gudbino kadibna aan u gudubno heesteedii koobaad ay fanka ku soo gashay iyo iyadoo aanu subtitle u samaynay halkaan aan ku kala dhigdhigi doono taariikhdeeda kooban waxaa January 14 2019 ku soo bandhigay mareegta la yiraahdo Wardheer taariikh kooban oo uu kaga hadlay booqasho keliya bariga haraye bagoo aanad ina soo booqan waa hees ay ku bilaabantay booqasho keliya bariga haray waa raaxeeye banaadiriga waxaa la sheegaa heesahaas banaadiriga ee la yidhaaho raaxeeye banaadir magaceeda heesta la yidhaaho ama heesaha la yidhaahdo in uu curiyey ama uu bilaabay ninka la yidhaa Maxamed Jaamac Joof la odhan jiray erayadaas oo keli ah ayaa badweynta fanka Soomaalida ku soo daray qofkan baxaaliga ka noqon doonta badweynta 1960 weeye sanadku Radio Hargeysa gudida ka socota ee uu hogaaminayo hogaanka u yahay Cali Sugulle Dun Carbeed ayaa imtixaanka qaadaya magaceeda ayaa la weydiinaya si dhiirani ku jirto ayay u sheegaysaa Xaliimo Khaliif Cumar ka timi Gaalkacyo una socota in ay heesto baahida loo qabay in la helo hablo heesaa aad ayay u badnayd markii la weydiiyay heesta ay qaadi doontana laxanka raaxeeye banaadiriga ayay midhaha ka qaaday fanka casriga ah ee Soomaalida iyo Xaliimo isku sanad ayay dhasheen 1943 ayuu Cabdi Sinimo iyo kooxdiisa Balwo sababeen in fanka Soomaalidu qaato qaab cusub isla guga ayayna Khaliif Cumar iyo xaaskiisa Madiino Dabay u dabaaldegeen in inani ku soo biirtay qoyskooda beledweyn iyagoo beledweyne degan iyaga oo aan waxba la ogeyn halka ay inantaa yari gaarsiin doonta fanka Sinimo iyo kooxdiisu maanta Boorama ku yabayaan isla sanadkaas ayay Magool dhalatay ama Xaliimo waxaa hawada markii koowaad laga dhageystay raadiyowgii u horeeyay ee af Soomaali ku hadla Radio Hargeysa oo markaa ahaa Radio Kudo raadiyowgani inuu in badan martigelin doono inantaa ku dhalatay dhowrka kun ee kiiloomitir meesha u jirta cidina may ogeyn maalintii ay goosatay in ay dhiibto istiqaalada shaqadii shaah shubidda ee ay ka haysay maqaaxida Gaalkacyo ayay Xaliimo qaaday jidka aan weligii qaloocsamayn ee ay u martay fanka Soomaalida socodka ay Hargeysa ku timi ee ay tartanka ku gashay kuna soo baxday ayay midhihiisa gurteen jiilasha fanka Soomaalida xiiseeya ee ka dambeeyay oo dhami maadaama dadka lagu dhex faafiyay in diintu aanay ogolayn gabadh heesta oo ceeb iyo caasinimo loo arkayay Xaliimo in magac tobalcaara ah loo sameeyo ayaa qasab noqotay
sida hablaha kalaba loogu yeeli jiray xusuuso maandeeq xasuuso maandeeq guduudo baxsan iftin cabdi ayuub oo waagaa agaasime ka ahaa radio hargeysa ayaa ku dhawaaqaya abaalmarin u taal ciddii magac u soo bixisa fanaanada cusub yuusuf xaaji aadan qabille erayadan uu ku curiyey codkii marka keli ahaa uu ka maqlay xaliimo ayuu ku mutaystay inuu ku guuleysto 300 oo shilin oo miiska saarnaa man u saaray may aruuriyaad iyo mooday magool kaliileed sidaas ayay xaliimo ku heshay shaqo cusub iyo magac cusub magool bartan ayay isku baranayaan fanka iyo magool saameynteeda nusqarniga soo socdaana wuxuu geysiinayaa in fanka ka dhigto mid magoolay waxaa qoray cabdicasiis ducaale mahadsanidii kulanti dambe oo xiisa leh sidaas iyo nabadgelyo iyo barnaamij kale oo aanu kaga warrami doono xaliimo khaliif magool iyo baartito iyo heesaheedii raaxeeye banaadir nabadgelyo. Please subscribe. Click on the notification bell to get more information from the Hirola channel and multi-production service. Thanks.